xafladan oo ay ku qalin jabinayeen arday tiradoodu dhan tahay 51 arday kuwaasoo dhamaystay waxbarashada heerka dugsiga sare ee iskuulka Imaamu Maalik oo ku yaala degmada Cadaado ee xarunta maamulka Xaman iyo Xeeb ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Cadaado ururada bulshada qaybahooda kala duwan bahda waxbarashada iyo madaxweynaha maamulka Xaman iyo Xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex. munaasabada oo lagu soo bandhigay majaajilooyin ku saabsan waxbarashada ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay agaasimaha mu'aasasada Imaamu Maalik Sheekh Xasan Maxamed Geedi isagoo ka warbixiyay ujeedka xafladda. xafladan maantay oo ku saabsan qalin jabinta ardada ay qalin jabinayaan kana qalin jabinayaan dugsiga sare ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Imaamu Maalik iskuulka sanadkan insha Allah taala waxa ka qalin jabinaysay oo hadda qalin jabisay maantay xafladoodii u fadhinaa konton iyo kow arday imtixaan culus oo laga qaaday daraadeed kulligood way ku baaseen sidaas daraadeed they have been graduated from the secondary school and they are going to the university. waxay ka qalin jabiyeen dugsigii sare haddana waxay u socdaan insha Allah jaamacadaha ay u socdaan. ardadan ka hor waxa qalin jabiday oo ka baxday iskuulkan ilaa iyo 3 dafcadood oo kale ayaa qalin jabiday. xafladan oo ay ka hadleen mas'uuliyiin fara badan ayaa ugu dambeyn waxaa soo xiray madaxweynaha maamul goboleedka Xaman iyo Xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex isagoo sheegay in ka maamul ahaan ay aad ugu faraxsan yihiin qalin jabinta arday gaaraysa 51 arday kuwaas oo ka qalin jabinaya waxbarashada heerka dugsiga sare ee iskuulka Imaamu Maalik. mahad celiyo mu'aasasada Imaamu Maalik iyo maamulkeeda iyo dhammaan ardayda wax ka barata wiilal iyo gabdhaba iyo dhammaan sharafta kale oo nala fadhisa maanta oo ka soo qayb gashay xafladan. وحفلة قيمة بدن نوقف فديدا أنا كمان ملاحان أرضي قلن جبينيسا وكقلن جبينيسا مؤسسة إمام مالك وأرضي عن فرحتها بنينا كلاقة قادنا تاريخيا أدنودو إن معمول كمركي أجري أرضي كقلن جبيسي هدو إن قل دونا أرضي ده وحكا قبل دون تودن كان أما دمان دولك الصومالية دودن وحن ربا مرول بأينا كبرا رجيو حكامياشا أما ليدرشيب كو إمام مالك يسنقون إن أكو كان بس dugsi hoose dhexe iyo mid sare waxa socday wada hadallo ay ka wadeen dhinacaasi Muqdisho in jaamacad Imam Maalik ay hoos timaado laga furo deegaanka waliba caasimada Cadaado inaan ku baraarujiyo hadii ay macquul tahay in arintaas lagu degdego oo si dhaqso ah loo sameeyo. xafladda kadib qaar ka mid ah ardada ayaa ka hadlay dareenkooda farxadeed ay ku aadan qalin jabinta maanta iyagoo sheegay inay jecel yihiin inay sii wadaan waxbarashadooda ilaa heerka ugu dambeeya waxbarashada. dad aad u fara badan oo ka mid yahay madaxweynaha maamul goboleedka Xaman iyo Xeeb iyo gudoomiyaha degmada Cadaado marka halkaas waxaan ku qabanay xaflad aad iyo aad u qurxoon xafladaasi wallahi xaflad aad iyo ajaa'ib gelisay ay ahayd kasoo gudub waxyaalahaas oo dhan aniga qaasatan maanta waxaan ka qalin jabiyay iskuulka Imaamu Maalik waa dafcadii afraad oo ka qalin jabinaysa maanta والله هذه يوم فرح سنة أنت هناك قرن شبيه سكول كديار التكملة هذا مالك حكينا إن شاء الله مستقبل فينا جامعة بشير عبد الفتاح أحمد علي شينو Somali Channel Cadaado.